mahadsan tahay ujeedka aan halkaan u joogno waxa waaye waa shir laba geesood ah ama bilateral waxa loo yaqaano oo dowladda Soomaaliya iyo Uganda ka dhaxeeyo sida ka warqabtid 2022 bishii 8 ayaa labada dal waxay sameeyeen guddi joogto ah waxa loo yaqaano guddi wada jiro joogto ah Joint Permanent Commission marka waxayna ku heshiiyeen labadii sano hal mar inay kulmaan marka waa kulankii labaad oo review lagu sameeyay lahaa oo Joint Permanent Commission kaas uu kulmi lahaa ayaa la gaaray laba arrin ayaana halkaan u joognay mid waxay ahayd in heshiisyadii hore loo galay wixii ka hirgalay iyo wixii u baahan in review lagu sameeyo tan labaadna waxay ahayd heshiisyo cusub oo la doonayay in la galo in halkaan lagu wada saxiixdo marka wafdiga halkaan yimid wuxuu ka koobnaa laba heer khubaro ah oo DSyada iyo DGyada Director Generalska iyo xogeyaasha joogtada iyo agaasimayaasha guud iyo la taliyaal iyo experts ah oo maalinta koobaad oo shirka u dhacayo todobada bisha ahayd xalina waxaa kusoo biiray wasiirada ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir Faarax Sheekh Abdulqaadir wasiirka amniga wasiir Cabdullaahi Sheekh Ali Fartaag wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiir Yuusuf agaasimaha hay'adda socdaalka immigration hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Mustafa Sheekh Abdul Xulow ayaa kusoo biiray gadaal lagu soo biiray marka sidaas ayuu shirku ku socday waa gartay waxaa jira marka maanta ayaa soo waa gartay marka waxaa jira heshiisyo wada saxiixdeen labada dawladood oo ilaa dhowr heshiisood ah maxaad nooga taaban kartaa waxaa la kala saxiixday heshiis amni oo labada wasaaradooda amniga labada wasiir oo amniga ay kala saxiixdeen waxaa kaloo la saxiixay heshiiska maareynta socdaalka oo immigrationka wasaaradda amniga ay u saxiixday laakiin oo immigration ku saabsan waxaa kaloo la saxiixday iskaashiga waxbarashada iyo ciyaaraha education and sports oo wasiirka waxbarashada uu saxiixay saddexdaas heshiis la saxiixay waxaa dib loo dhigay oo isagana shaqadeeda ay socotaa wasiirka shaqada heshiiska shaqada iyo shaqaalaha oo isagana dhawaan la saxiixi doono waxyaabaha kale oo laga wada hadlay oo dhamaystirkooda laga shaqeyn doono waxaa kamid ah iskaashi caafimaad iskaashi cimilada iyo deegaanka iskaashi maaliyadda iyo bangiyada iskaashi tayada iyo heerarka badeecadaha iskaashi maamulka qaxootiga intaasna waa dhiman yihiin waxaana loo yeelay timeline waqtiyo kala duwan oo lagu qabanayo heshiisaas gabagabadooda lagu gaari doono doodo xagga ganacsiga iyo arrimaha la xiriira ayaa jiray oo dhinacyada kala gedisan ay ka doodayeen muxuu daarnaa doodahaas iyana maxay ahayd ujeedadoodu waxaa la soo maasan tahay shirka inta uu socday labada maalmood oo uu socday waxaa ku garab socday bandhig ganacsatada Soomaaliyeed ee ganacsata Uganda ah ay kusoo bandhigayeen badeecadahooda sidoo kalena ay ugu sheekaysanayeen sida iskaashi ganacsi labada dal ay u sameey lahaayeen bandhigyo carwo ayaa la sameeyay oo waxyaabaha Soomaaliya laga soo saaro iyo waxyaabaha Uganda laga soo saaro iyo kambaniyada labada dalba waxyaabaha ay qabtaan ayay halkaas kusoo bandhigayeen ilaa hadda waxaan dhamaanin oo socdo bandhig runtii iyo banal looga sheekeysanayo dowladahaas dowladda Soomaaliya iyo dowladda Uganda fursadaha labada dhinac ka jiro iyo sida labada dhinacba loo maalgashan lahaa sida ganacsatada Soomaaliyeed ay u maalgashan lahaayeen ganacsatada Uganda dalka Uganda sida ganacsatada Uganda ay u maalgashan lahaayeen Soomaaliya marka isaga shirkaasna saas u socdaa waana weli waa socdaa wadamo dhamaanin saacadaha soo socdo dhamaan doona hadii aan wasaaradda arrimaha dibadda iyadu marka doorkeeda muxuu ahaa ee shirkan wasaaradda arrimaha dibadda waxay dowladda Soomaaliya wakiil ugu tahay JBC ama Joint Permanent Commission wasaaradda iyada hormuud uga ah coordination ay leedahay way isku duudaa iyaga dhankoodana wasaaradooda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isku duwidda leh guddiga Joint Permanent Commission wuxuu ka kooban yahay hormuud u ah labada wasaaradooda arrimaha dibadda ayaa hormuud u ah
sidoo kalena sidaas oo ogtahay wasaaradda arrimaha dibadda bandhigkeedaba ah wixii diblomatic channel oo ka baxsan gudaha Soomaaliya iyada inay macaamilka la samayso fududayso. waa tahay gabagabadii marka safarkiinan iyo didiilada xagga horumarka iyo sistamka dowladnimada iyo fariimaha arrimahaasi ku aadan ee aad la wadaagaysa bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo dadaaladaasi guud ee dowladdu ay wado maxay tahay oo warbaahintan qaranka aad la wadaagayso mudane xog haye maadaama xogihii joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda aad tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay iyadan xoog leh ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u muuqda kabashada aan galnay waa kabasha maasha Allah waa kabashada maanta la dhihi karo meel aad u wacan ayaan tagnay oo dowladda dhiggeeni ah mataqaana dad loo xisho oo lala sheekaysto oo wax laga rabo wax lagu tuumaayo runtii waxaana si gaar ah moogtahay aan mudnaan iyo amaan u soo jeedinaha ganacsida Soomaaliyeed oo East Africa dowladaha East Africa ay ku tartamayaan leeyihiin aniga dhankayga ay yimaadaan ay maalgashtaan oo qolo kasta ay rabto marka waa sharaf runtii aad u weyn oo ganacsadeena ay leeyihiin kabasha xoog lehna waa galnay oo dal sidaad ogtahay ku jiro UN Security Council-ka membership-ka ku jiraan nahay dal waxaan nahay sidaad ogtahay maanta oo aan kula hadlayo laftigeeda aad ogtahay in xuquuqul insaankii aan la soo wareegnay oo waagii hore mas'uul dala ka ahaa marka waxaas iyo waxyaabo badan kabasho xoog leh ku jirnaa waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeedna in ay runtii dowladooda support gareeyaan oo garab istaagaan oo ay runtii maamulkooda ay gacan siiyaan saas rajaynaynaa insha Allah